بسم الله الرحمن الرحيم. dhammaan aad baan u salaamay kasta saxaabta meel kasta aad ka joogtaan caalamka waxaan leenahay daa caalamka Soomaaliland joogtaan daa caalamka joogtaan ba welcome with us having kusoo dhawaada ayaan leenahay kusoo dhawaada baan leenahay gacmo furan asxaabta qaaliga meel kasta ka joogtaan caalamka waanu idin soo dhaweynaa maanta waxaan halkan aan u garnaqanaa ama aanu ka cabananaa ama aanu hawada u marinana ama hawada waxaan hawada ku marinaa inay laba quwadood waa laba military ama laba dawladood oo isleenaya in ilaahay kala qaboojiyo oo ilaahay hadalka ducada iyo waxa maansada yara tirina inuu ilaahay naga aqbalo marka insha Allah hadana doonto labada quwadood inaanu maanta u ducayno oo aan ugu ducayno madaxa waa laba quwadood oo khatar oo hadday istilaan ba waxaa dhacaya dunida waxay galaysaa khalkhal oo dee saameyn baa dhacayso ma garanaysaa marka waxaa leenahay ilaahay kama dhigo insha Allah si khayr laha noqoto labada quwado insha Allah waan u ducaynaa anagu haddii islaayaaban ku wuri dunidu wax noqonaysaa qiiq iyo waxa lagu sii helayaa ya dambas marka aan dib bilaabana waxa weeyaan waxa dunida wax noqonaysaa waa qiiqii dambas dunida noqonaysaa waxa qoomiyada Faransiis iyo qolada Arabka qadirow u kala micin waa laba quwadood oo hadday isqoonsadaan nuclear bay isku qiijinay qatartooda naga qabo labada nuclear baa sanmogta qatartooda naga qabo qaranka Jumbuutina Arabkoo qamaamayo qunyar buu qabsane kala qabooji qaadir qoome waa quwada Arabka sheegna ka qabooji qaadir qaramada midoobiyo dunidu way ka qaylisay qasaaraba laga biqiye qunyar hoy quwaduhu waxaana han maqla labada quwadood qoomiyada beesha Arabka iyo qoomiyada Faransiiska ama Djibouti xaleena hadee hadii ka dee aan ma jeclin aanu dhimanno oo dhexdina ku dhimanno ma garanaysaa marka dee waxaan rajaynaa inaad dee isteysaan oo ma garanaysaa qaramada midoobay idin dhexdhexaadiso wabillahi tawfiiq